Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawow daawade. Waxaan idila wadaagi doonaa sheekadii ku saabsanayd ninkii caqliga badnaa ee aargoosi dartii u dooniyey ganacsigii, guryihii, xafiisyadii dowladda ee tuuladii uu ku noolaa. Muuqaallo qurxoon, buuro, kaymo, iyo godad dhaadheer. Kuwani waa qaar ka mid ah astaamaha juqraafiyeed ee lagu sifeeyey Colorado, gobolka Colorado ee ka tirsan Arigaasi Mareykanka. Waa mid ka mid ah gobollada buuraleyda ee Mareykanka. Kiiskeena maanta waxa uu khuseeyaa oo uu ina keenayaa 25 mayl dhanka waqooyi galbeed ee caasimadda Colorado, Denver, meesha loo yaqaano Grand Lake. Waa magaalo aad u yar oo dadkeedu aad u yar yihiin, iyadoo sanadkii 2019 dadka deganaa lagu qiyaasay 506 qof oo kaliya. Waa dad ay ku filan tahay inay raacaan diyaaradda loo yaqaano ama mar kaliya ay qaado Airbus A380. Haddii aynu dib ugu noqono sagaashamaadkiina, dadku intaasi way kasii yaraayeen. Waxa lagu qiyaasaa inay ahaayeen 209 qof. Mid ka mid ah dadkaas waxaa la oran jiray Marvin John Hemer. Marvin waxa uu dhashay Oktoobar 28keedii 1951 gudaha magaalada South Dakota. Markuu jiray 30 sano waxa uu guuray aagga Grand Lake sanadkii 1991 isagoo ka yimid fasax 6 bilood ah. Markii uu ogaaday sida uu jecel yahay goobta uu uga helay goobtaas buuraha leh ee barwaaqada ah, wuxuu go'aansaday inuu dego Grand Lake, tuulada Grand Lake, isagoo ahaa nin dhexdhexaad ah oo ku dhow 40-meeyadiisa. Weli waxa uu ahaa mid xor ah oo single ah oo aan wax lamaana iyo carruur iyo waxaasi aan ku lamaanayn. Marvin wuxuu ahaa nin jecel nolosha oo wax walba isku daya, aadna u shaqeeya. Wuxuu ahaa nin aad u qiimeyn jiray saaxiibtinimada. Wuxuu diyaar u ahaa inuu qof walba caawiyo xilliga u baahan yahay. Wuxuu ahaa nin isku kalsoon oo loo arkay nin qurux badnaa oo dhisan oo jecel dabeecadaha kala duwan, xirfadaha, iyo maxaan ku dhahay aadna ugu wanaagsan dhanka injineernimada. Laakiin dabeecadihiisa hanka leh iyo niyad-samadiisa waxa barbar socday in uu ahaa nin wax kasta sidooda u sheega oo hadal cad, oo mararka qaar la dhihi jiray ninkan yaan laga gardarnaanin. Sanadii 1992 Marvin waxa uu iibsaday dhul 2 hektar ayuu wuxuu ka iibsaday meel u dhow West Motor Road, Granby, tuulada Granby loo yaqaano, oo meel aan aad uga fogeyn Grand Lake oo gurigiisa ku yaalay. Waxa uuna ku iibsaday lacag $42,000 ah. Waxaanu ka iibsaday shirkad loo yaqaano Resolution Transport, waqtigaas oo ahayd lacag aad u badan, $40,000 oo ahayd lacagtii uu save gareynayay. Meesha waxa uu u qorsheeyay inuu ka furo ganacsigiisa kadib markii uu kasoo fadhiistay ciidanka cirka uu ka tirsanaan jiray. 1969 Marvin waxa uu helay hibadiisa dhabta ah oo inuu noqdo alxanle ama welder, si xirfad leh wax walba u sameeya, isagoo ka tirsanaan jiray ciidanka cirka ee Mareykanka. Ciidanka cirka Mareykankuna waxay bareen inuu isagu go'aan ka gaaro xaaladaha noloshiisa. Ma uusan doonayn inuu u shaqeeyo qof kale oo rabin in isaga loo shaqeeyo. Sidaas darteed 1992 waxa uu ka tegay shaqadiisii ciidanimada oo waxa uu rabay inuu noqdo nin makaaniga oo sameeya waxyaabahan baabuurta isticmaalaan, exhaust-yada ama mufflers-ka loo yaqaano, qiiqa gaarigu ka sii daayo xagga dambe kaga xidhmo si uu baabuurta uu sameeyo oo uu soo saaro. Waayo laxamadu ayuu aad u yaqaanay oo ciidanka kusoo bartay oo wuxuu ahaa nin farsamada aad u jecel. Sanadkii ugu horreysay wax walba si fiican ayay ugu socdeen ganacsigiisii, si wanaagsan buu ugu koray. Waqti yar kadib ganacsigiisii
mu badbaadinaya kaliya laakiin wuxuu noqday alxanlaha ugu caansan magaaladaba. Xitaa wuxuu ballaariyay adeegyadiisii laakiin wax yar ka hor sanadkii 2000 hoos madow waa sida la yidhaahdo gobol boos baa u dumay ayaa waxa uu ku sugtay inuu hoos u dhacay ku yimaado ganacsigiisii. Waxaa soo baxay warar sheegaya in dhulka weynaa ee isaga ku haray dhulkii weynaa ee 2 hektar ah isagu uu iibsaday dhul ku hareeraysan oo aad u weynaa in ay la rabo halkaas in laga dhiso warshad sibidh ama shamiito kuwaasi oo lahaayeen qoys loo yaqaano Doshef oo madax u ahaa wiil qoyskaasi ka tirsanaa loo yaqaanay Cody kaasi oo waqti hore ninkan ay isqabsadeen oo kaga guuleystay in uu dhul uu isagu isku qabsadeen uu kaga guuleystay ninkan Denver ah oo hore isku hayeenba taasoo markaasi keentay cadaawad. Laakiin hadda warshadu waxay gabi ahaanba ninkii Marvin ahaa ay ka jaraysaa wadadii iyo meeshii uu soo marayay iyo meeshii macaamiisha uu soo marisay waxaasoo dhan ayay ka jaraysaa hareeraheedii ayay qoyskii ka iibsadeen meel ay rabaan inay ka dhisaan warshada oo dee meesha waxa ku yaala meheradii ninkan uu ku sameynayay alxanka. ugu dambeyntii qoyskii Doshef waxay la xiriireen Marvin wadahadal bay la sameeyeen wadahadal dheer kadib waxay ku heshiiyeen Marvin inay dhulka kaga iibsadaan $250,000 taasoo ku dhawaad 6 jeer laab oo ah lacagtii uu ka iibsaday $240,000 ahayd. Si kastaba ha ahaatee waqti kadib ninkii Marvin uu fikiray wuxuu yidhi dhulkan hadii mar aad loogu baahan yahay bas sicirka kordhi wuxuu ka dhigay $375,000 markii niyow intaasan siinaya ama iga siisansa. Markii ay qoyskii soo fikireen intay qoys lacag laba hayna hay waa sax bay yiraahdeen. Haddana wuxuu yidhi aryaa haddii lacag intaa la bixinayaan $375,000 kordhi lacag $1,000,000 baan siinayaa bas qoyskii markii $1,000,000 ku yidhi qoyskii way xanaaqeen waxay yidhahdeen ninkan waa xaytay oo nagu soo labkacleeyay sidee baan $1,000,000 uga siinay halkaas sheekadii ay ku joojiyeen ay wadaxaajoodkii ninkan ay la wadeen. kadib sanadkii 2001 guddiga qorsheynta ee magaaladaasi ayaa waxa ay ogolaadeen in meeshii warshad laga dhiso iyadoo wax ogolaashaaba la weydiiyey ninkii Marvin ee dhulka ku lahaa meeshaas. Markaasuu Marvin dee aad u xanaaqay oo ka hor yimid maamulkii magaalada isagoo kharash ahaan u bixiyay ilaa lacag $150,000 oo qareenadii uu qabsaday iyo saxiixyadii iyo wixii uu maaragtay rabay inuu dadka kasoo saxiixdo petition wax loo yaqaano si aan dee meeshaas lagu dhisan warshada. Marvin nasiibkiisa wuu ka sii darayo markii hore waxay isku dayayeen inuu si cadaalad ah u shaqeeyo isagoo codsanayay in loo sameeyo wado cusub oo ganacsigiisa gasha oo hareeraha ka marta warshada. Wuxuu xitaa iibsaday bulldozer cagaf loo yaqaano oo kuwan ciidda qaadaa si uu isagu dee u fududeeyo shaqadaas si degdeg lagu qabto wado u helo. Si kastaba ha ahaatee dowladda ka talinaysay gobolkaasi ama tuuladaasi Granby way ka diiday. Hadda ma lahayn wada uu ka galo dhulkiisii uu iibsaday ninkaasi ku shaqaysanayay. maalmo kadib dowladda waxa ay ninkii Marvin ahaa ku ganaaxday $2,500 iyadoo ku eedeysay xadgudubyo kala duwan kuwaas oo ka mid ahaayeen baabuurta duuga ah ee meesha taas ka taala iyo bulaacadaha iyo drainage-yadii meelihii ay uskaga ka baxayay iyo waxa qashinka lagu farsameynayay. Kabacdi waxaa dhacday in la yidhaahdo meeshii laga xidhayaa. Tani waxay dhacaysay iyadoo isla dowladdaasi markii hore ka goysay adeegyadii warshadii inay dhisan ay warshadu dhisay si meesha oo adeegyadii iyo wixii loo qaban lahaa ninkan la siin lahaa oo dhan laga jaray baa layidhi meesha waa laga xidhayaa. Marvin waxa uu khasab ku noqotay inuu ninkii Cody dee warshada dhisayay uu fasax weydiisto oo ogolaansho si uu tuumbo bulaacada meesha u mariyo dowladda ay ogolaato si aan meesha looga xidhin. ninkii Cody dee markii hore ay hayeen waxay dhibanayeen meesheedii ma baranaysid. ninkii Marvin
hoos buu soo istaagay wuu yaabay xageesha waxaana kala socdaa xagee googo-ana kaala yihin yaa kula googo-aya waxay dowladan iyo qoyskan lacagta le isu kaaba haysta buu yiri si cad haddii loo dhigo waxa ku ciyaaray shirkadii cusbeyd ee maamulka magaalada iyo qoyskani wateen maskax ahaan wuxuu joogay halkii u dambeysay ninkaasi ganacsigiisii waxa uu qarka u saarnaa inuu kaco habeenada ka mid ah isagoo balakoonka gurigiisa fadhiya wuxuu bilaabay inuu geerashkiisii ka kireeyo shirkad qashinka gurta oo uu yidhahdo bal halkaas inuu iga kireysto si lacagta waxay usoo noqoto waxoogaa markay ka kireysnay haddana wuxuu bilaabay inuu ka iibiyo 400,000 oo dollar ayuu ka siiyey sanadkii 2003 mulkiilayaasha cusbaa Marvin waxay siiyeen dhowr bilood si uu uga guuro meesha waxa ayna bilahaas markii uu bilaabay shaqada mashruuciisa sirta ahaa ee uu cid walba ka qariyay bulldozer-kii ama cagaftii markii hore uu soo iibsaday ninkii Marvin ahaa oo meesha iska dhex taalay oo uu rabay inuu wado ku dhisto oo uu rabay inuu baroobeeyo ayaaba waxay bilowdeen uu ku isku dayay bal inuu meesha gurigii uu ganacsiga ama wax ku alxamayay bal inuu ayar geliyo marka ay gashay meesha wuxuu arkay inuu tani waa fikradaaba kusoo dhacday wuxuu oryaha waxaan aan meesha soo gelisay waaba wax lagugu sheegay xagga ilaahay bay kaaga timiba markaasuu yidhi waxaan rajaynayaa in dadka Granby ku nool dhammaantood ay bartaan in qaabkii aad ii ciqaabteen sanadihii aan halkaas joogay inay iga dhigteen nin quustay nin ka quusta cadaaladda oo sameeya wax walba oo cadaaladdaasi ku heli karo oo uu gacantiisa ku xaqoosto qorshahaasi sirtaasi ahaa ee uu Marvin sameeyey waxay qaadatay qiyaastii ilaa iyo sanad iyo badh wuxuu isticmaalay dhammaan 2003 ilaa iyo 2004 isagoo bedelay bulldozer-tii oo wuxuu u bedelay gaari gaashaaman oo leh awood aad iyo aad u weyn oo burburin leh wuxuu xitaa ka dhex samaystay guri yar oo u dhex seexda maalintii habeenkiina uu ka shaqayn jiray si aanay u dhibin maaragtay oo loo aragtay sir ahaan darisku aanay u ogaanin isagoo iskarantiilay wuxuu duubay cajaladooyin uu kusii sheegay oo uu leeyahay waxaasan samayn doonaa caynkaas waxaasaa la geystay waxaasoo dhan waxaasoo markii dambe lasoo bandhigay Marvin wuxuu weerarkiisii u horreeyay ka bilaabay inuu dumiyey gidaarkii ay ku jirtay cagafta ee uu ku farsameynayay isaga oo kaxaynaya bulldozer-tii mishiinkii oo markaas oo u dhaqaaqday xabsida iyo qalalaacdii gililta iyo cabaadka ka baxay baararsi codka samaynayso aad yaabaysid waxa uu toos ugu jahaystay oo toos u abaaray warshadii cadowgiisa lahaayeen ee ninkii Cody ee shamiitada soo saaraysay markii qayladii iyo codkii iyo kuwixii baashii la maqlay dibadda loo soo wadayay shaqaalihii ninkii Cody iyo shaqaalihii daawanaya warshadii tuf siiyey burburiyo dhinac walba kaga yimi booliiskii wadartiiba way yimaadeen waxay bilaabeen inay eryadaan ay ku ridaan rasaas aad iyo aad u badan iyadoo la arkay inaan waxba ka tarayn rasaaskaas waxa uu sidoo kale markuu warshadaas soo burburiyey uu yimi meel qalabka lagu iibiyo electronicska tii uu burburiyey wuxuu yimi sidoo kale meel kaloo meheradka loo yaqaano Marble Street Builders kii uu burburiyey waxaas oo meheradaha markuu soo burburiyey ee booliiska u taag waayeen ee maxaan ku dhahaye wax walba la isku dayay ee uu maxaan ku dhahaa cagaftu intay xaggan kasoo gasho guriga xagga kale uga baxaysay waxay booliisku isku dayeen bal inay baashan si u joojin lahaayeen markuu intaas soo burburiyey wuxuu si toos ah iskugu dayay inuu aado meeshii booliiska laga xukumiyey daqiiqada gudahood buu iyagana ku burburiyey iyadoo cidna ku dhaawacmin haddana wuxuu adeegay bankii tuulada uu burburiyey isagana haddana wuxuu aaday wargeyskii Sky High News loo yaqaanay oo meesha ku yaalay kiinuu burburiyey dadkii aaggaa ku deganaayo oo dhan baa laga saaray booliiska ka saaray iyana meesha wax ku noqon guryaha ku timid guri iyo ganacsi iyo meherad iyo xafiis iyo meel ciidan saldhig ciidan iyo waxba uma kala dayin marka dee booliisku intaa waxay isku dayeen bal inay joojiyaan wax walba way isku dayeen ninkan waxa uu sameeyey ma horu kasii fikirayo wuxuu sameeyey bir
aad iyo aad u weyn buu ku dahaaray dhinac walba ka dahaaray oo lagu qiyaaso qaradeeda 1 feet. waxaanu gudaha ugu shubay shamiito si aan xabadda waxaas uga soo gudbin muraayadaha hore ee xagga hore kaga yeelan wuxuu ka dhigay bullet proof aan xabad karin, iyadoo si aanay dib markay boodhkii waxaas ugu dhacaan muraayadaas aan ugu qarsoomin buu ku xidhay biyo iyo air si ay maaragtay ugu nadiifiso. xagga horena wuxuu kaga xidhay 2 qori oo mini 14 loo yaqaano iyo M18, laakiin nasiib wanaag qoryahaasi markuu adeegsanayay ayuu waxba kuma noqon ee dadkunbuu dee maaragtay kaga nixinayay. markuu intaa soo damiyey wadadii dhabbada ahayd oo loo yaqaano Propane Street ayuu toos ugu soo degay. Propanekaas waxaa ku taalay meel propane wax lagu bixiyey, waxaa ku taalay meeshaas gaas meel lagu kaydiyo haan weyn oo gaas lagu kaydiyo, kaasuu rabay inuu qarxiyo. kadib markuu rasaastii riday, rasaastuu rabay inuu ku qarxiyo ku dhufto si aanay dee maaragtay isaga ugu qarxin. in yaroo halkaas khaladoo uu ka galay baa waxa dhacday qorigii markuu rido ee qorigu aan rasaastii dhaafaynin xaqaftii iyo bartii uu sameeyey. kadib waxa uu soo jeestay meherad kale oo ku dhoweey halkaas oo loo yaqaanay Copycat Printing, tiimu iyana soo dumiyey. markii uu meeshaas sii burburiyey ninkii Marvin ahaayey mishiinkiisii, waxa uu sii watay burburintii wargeyska iyo waxaasoo dhan, iimaylihii, khamaarka, wax walba wuu burburiyey ninkii. magaaladii waxaan ku wuxuu ka dhigay dhulka la simay. markuu magaalada dhulka la simay, ninkii wuxuu gaadhay maxaan ku dhahay satisfaction buu helo, ugu degay waxaan ku xaradii iyo ereykii iyo wixii hayay oo dhan ayaa ka degay. kabacdi isagoo burburintii wada ayaa cagaftii kululaatay, qiiq ba samaysay, way socon weyday, waxaan ku halkiiba ku istaagtay. booliiskiina hareeruhu ka maray, waxay ku riday ilaa 400 oo xabadood, laakiin waxba way ka qaadi weyday. wuxuu dumiyey 13 dhisme oo isugu jira shirkadihii wixii oo dhan aan soo sheegnay. magaaladiina waxa uu geliyey khasaare lagu qiyaasay $7 milyan ayuu geliyey. dee ninkaas bal markaa maxaynu ku qiyaasi karnaa? waxaynu ku qiyaasi odhan karnaa waa nin halyeeya, wuxuu ahaa nin argagaxisaa, ma nin raga buu ahaa? balse xagga commentiga nogula wadaag ninkaasi iyo sheekadiisa. waxaan rajeynayaa in aad uga hesheen sheekadeennan. subscribe noo saar, like noo saar, siina share garee, commentigana ha ilaawin. aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.